ma bannaan. Nacam. su-aasheena jazakallahu khayran. su-aasheena 317aad waxa uu saa'ilkan leeyahay haweenay qaaday uur zina ah ayaa markii la weydiiyey uurka ku sheegtay inuu hebel uureeyey, hebelkiina wuu inkiray, wax marqaatina lama hayo, sidee loo kala saara labadaas qof? sideedaba zinadu ama haweenay dumar ha lagu sheegto ama nin ha lagu sheegtee zina waxay ku sugnaataa laba mid: 4 markhaati in la helo oo hawshu markay dhacaysay arkahayay, isha ku hayay, iyo inay qiraal timaado oo uu ruuxu qirto. labadaa waxaan ka ahayn haddii laysku sheegto ruuxa ku sheegay baa la dhihi adeer 4 markhaati keen. waad keeni weyda soo maaha, adaaba lagu karbaashiba. allahuma masaladu inay tahay gabadh la qasbay oo la boobay oo xoog wax looga qaatay, masaladaasi taxqiiqeeday leedahay. laakiin haweenay mutaawica ah oo iyaduba ogolaatay oo hawsha wax ka qabatay, yaa hebel baa iga sinaystay, adiguna waad ka sinaysatay soo ma, xumaanta waa wada samayseen soo ma, adigu isku qirtay inaad samaysay, laakiin asagu wuxuu u baahan yahay inuu kugu sameeyey in la helo 4 markhaati ama qiraalkiisa la helo. soomaali warkeeda ka baxdiga yaa odayaal baa gogol dhigi iyo waxbaa la qabanaya. allahuma haddaad islaynaysaan saad ku kala baxaysaan idinkaa garanaya. laakiin masaladu waa sidaa. masalada zinada iyo in laysku sheega masale culus wey, aad u culus waa. nabigeenna sal alla alay wasalam xadiidka abu hurayra iyo zayd ibnu khaalid baa jira fii saxiixi albukhaari wa muslim ku yimid. nabiga sal alla alay wasalam labada nin ee saxaabada waxay leeyihiin annagoo nabiga la joognaa nin u yimid. markaasaa wuxuu yidhi anshuduka allah ilaa qadayta baynana bikitaab illah, ilaahay baan kugu weydiinay kitaabka ilahay nagu kala saar. isagii nin kala ishaysta. ninkay ishaysteen baa isaguna istaago markaasu wuxuu yidhi, wuu ka fiqi badnaa, wuxuu yidhi iqdi baynana bikitaab illahi wa'dan lii, rasuulka ilaahay oo kitaabka ilahay nagu kala saar, anigana ii idan aan hadle, hadalka isii ii ogolow. markaasuu nebigu wuxu yidhi sal ly slm qul, hadal buu yidhi. wuxuu yidhi marka wiilkaygii ayaa wuxuu shaqaalo u ahaa ninkan, gurigiisuu ka shaqayn jiray, xaaskiisii buu ka sinaystay, xumaan ku sameeyey. markaasaa wiilkaygii dad baan weydiiyo waxaan idhi war wiilkaygii baa waxaa lagu sheegay, haddaan maxkamadda geeyo oon nebiga u geeyo maxaa lagu samaynaa? waxay igu yidhahdeen baa wiilkaaga qoortaa laga jari, waa dhagax baa lagu dilay. markaasaan wiilkii intaan heshiinay baa waxaan ku furtay buu yidhi 100 neefoo adhi ah iyo addoon adeega baa ninkii kula heshiiyey waa ku siinahayaaye niyow wiilka ii sida. sidii markaan ku heshiinay oo hawshii saa ku dhacday ayaan rag kaloo culimo baan arrintii weydiiyey buuri. markaasaa waxay ii sheegeen buuri, war wiilka la dili maaye 100 karbaashna waa lagu dhufo waana la masaafurin ee dil ma jiro, laanna wax guura ma soo marin soo ma. markaasaan arrintii dib ula soo noqday. sidaas daraaddeed rasuulka ilaahay ninkana kala saar. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi marka ilaahayga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la aqdiyanna baynakuma bikitaabillah jalla dhikruhu, walla inaan kitaabka ilaahay idinku kala saari buu. markaasaa wuxuu yidhi almi'atu shaatin wal khaadimu raddun, 100 neef ee adhiga ah iyo khaadimku waa celis lagu soo celin kow, ilaan xuduud la iibsado ma jirtee. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، wiilkaagana 100 jeedal iyo sanad la masaafuriya yaa la saaraya. islaantiina maxaa lagu samaynaya? waqdu ya unays cala imra'ati hada fain ictarafat farjumha buu nabi sal lla alay wasalam. nin unaysna yalla diro wuxuu yidhi unaysow ninkan xaaskiisa ku kallah barri markuu waagu baryo zinada hadday qirato dhagaxa ku dil buuri. soomaali hadday qirato, hadday qiran weydana ninkii yidhi way zinaysatay baa la soo qabanaa marka sooma. kaasaa la dhihi caddee markhaatiya keen. hadduu keeni waayo karbaashkii baa lagu qaadayaa qadfiga, waxaa lagu dhufanayaa markaa isagaa la jeedlayaa marka. sidaas daraaddeed masaladu wax weeyaan hadday ikraah iyo dumarka xoog in wax laga qaata ay timaado waa masalo taxqiiqeeda leh, axkaam khaasay leedahay.
laakiin hadday tahay dad isku khaldamay oo kala zinaystay yani waxa way ruuxa le waa xumaan baa laygu sameeyey waa in caddayn la helo markhaatiyada taxqiiqa qaabkaasay sharcadu qabta wallahu aclam